بس يبغى وأنا waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii sida la socotaan 12kii habeenimo ay sii maraysaa waa kowda luulyo caawa aan ku qabanayna xafladeeni aan ugu talagalnay 53 sano kadib xorriyadii Soomaaliya ay ka qaadatay Ingiriiska iyo waliba dalka Talyaaniga waxaanu ku soo gabagabaynaynaa Axmed Diite oo kamid ah odayaashii iyo عقاشة reer Nashville waxaanu ka soo qaadan doonaa khudbadiisii ugu dambeysay inta ayaan ku soo gabagabayn doonaa inta ka horeyso Axmed Diite ayaanu yariyaa Axmed Diite السلام عليكم. السلام عليكم. My name is Fuad. I am from Texas. I am Somalian and I am proud to be a Somalian. السلام عليكم. السلام عليكم. ومحاي صومالي محوي هاي مجا صومالي صومالي السلام عليكم. صومالي ومحاي وطن ودد شعب أو ميل دقن أو دولتنا له أنا عد كله أنا لله هين درس أما أنا عد كله تروسو جود برين ومحاي قبل ودد قد يدو ذا قاس كأحكة الشنايا كن سجال بقول 18 century Somali واحد أي كشتجال واحد عاوي وتكلير هذا مصر واحد عاوي مصر and then واحد يمد تدلير هذا كميسي أو سدح وطن England and France and Italy حلقاس واحد يد حكومة تدلير الشيوعية سيدا حد كومونيتيستي شيوعي سيدا حد أيو حكومنا الدولة ذاتك اللي ذاك والتاليسم سوماليا ومركز أي هاد ضد حكوميان بقرة واحد عادي إن أي ضد كاسيتي أي قبضين أي كذبنا أي تحدث السكوت قالن 1940 Somalia waxaa dhacay kadib 1940 in Englishka iyo Britishka isku dagaaleen dhaxdooda laba qaybood ay u kala go'een kadib ay u kala qaybiyeen shan qaybood ee maanta aan naqaano Djibouti Somaliland South Somalia dhinaca la yiraahdo Wajeer oo Kenyaatiga ay xukumaan still iyo Ogaadenia Soomaaliya dhulkiisa baaxadiisa waa 600.600 square mile 200 no actual square kilometer 246.201 square mile population kiisa last 2012 waxay noqdeen 9.8 million people qaxootiga oo dibadda u soo qaxay waxay noqdeen almost 3 million people wadanka Soomaaliya xilligii 1960 ahayd oo inoo sheegay qolka daytole 1950 actually 1950 ilaa 1960 waxaan xukumayay wadanka Talyaaniga ee uu noo soo diray governor hase yeeshee wadanka marka waxa xilka gacanta ku hayay
oo aan madaxweynaha ahayn oo wasiiraha Cabdullaahi Ciise ee dhintay 1988 kadib waxaa loo dhiibay aadan Cabdulle oo qabsaday macnaha ku qabsaday election kadib waxaa loo dhiibay Sharmaarke kadib waxaa loo dhiibay Siyaad Barre sidaas ay ku socdeen ilaa hadda intii ugu dambeysay Soomaaliya xilligii 1960 waxay lahayd waxyaabo kala duwan oo wax soo saar ah كمبنيga la yiraahdo Fiat meeshii joogay oo baawro badan soo saari jiray sida cagaf-cagafyada ee naga caawiyay jidadka isku xira from corner to corner waxa kaloo jiray sida dharka oo kaleeto warshada ku talbalcad Jowhar iyo warshado badan oo kala duwan Soomaaliya xilli kasta waxay ku taamaysay ay raadinaysay ay markasta ku socotay dhalinyaro cusub oo wax barteen hase yeeshee markasta xilli kasta gumaysiga faraha kuma qaadayn ee wuxuu ku sameynayay inuu kala jabiyo oo kala qaybiyo oo qayb kasta si gooni ah oo la xiriiro maanta oo tahay 2013 ana ku ogsoon oo la socono waxa ka dhacay jiray Soomaaliya haddana still ay nagu soo dhacayso waxa loo baahan yahay in waxbarashadii aan sii wadno in wadankii dibdhiskiisii laga qayb qaato sababtoo ah 1960 wixii la sameeyay ilaa 1970 waa wax aad u weyn ahayd dekedaha la dhisay airportyaasha la dhisay dadkaas waxaas dhiseen waxay ahaayeen aabayaasheen oo u qabanayeen in anaga ku raaxaysano wadankeena hooyo kadib Most of the people here, they came to Somalia. They're from Somalia, they came to America. They think that Somalia is a bad place, but no place is bad. You think the world is the bad thing, but it's not. It's the citizens living in Somalia. If you want it to change, you have to do it yourself. Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro waxay qabtaa dad badan oo dhalinyaro ah oo ku dhashay wadanka dibadiisa waxaa kamid ah Fuad still wuxuu rabaa inuu Soomaalida helo wali wuxuu rabaa oo u dream gareynaa oo markasta oo niyadda ku haysta inuu mid Soomaali ah oo bari wadankiisa iyo dadkiisa wax taran noqdo xagga kaleeto ragga dadweynaha Soomaaliya waxay kale u baahan tahay waxaan qabnaa masaajidyo oo wadanka ka dhex dhisan waxaan qabnaa waxyaabo fiican oo wadanka aan u sameynay waxaan qabnaa in markasta aan wadankii aan dhisno ee aan ka dhisno xagga dhaqaalaha xagga waxbarashada haddii aad maanta aad tiraadid aniga wadankii waa dhisay ee aad ka jiifatid beritoole markaad dhimato cunugaagii ee diintii islaamka aad ku tarbiyeysay ee wadan shisheeyay wadankii yimid ee uu qabsaday soo kugu soo duceyna kuma soo ducey karo because waxaan ogsoonahay xagga islaamka in qofka markuu dhinto caruurtiisa u duceynayso ay leedahay macnaha aabahay iyo hooyaday maanta u duceynaa shirka caawa dhacay oo ah 1st July 1960 markasta waa xusi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo cabdi oo ka socdo Somali National TV asna hadduu ilaahay yiraahdo uu joogi doonaa Somali National TV waxay u baahnaan doontaa laba qofood oo kaleeto hal gabar iyo hal wiil oo kaleeto sidoo Cabdiraxmaan aan u noqon doono agaasimaha guud ee Southka ta kaleeto oo ah dhigitaanka la dhigi doono waxyaabo badan ah jiraan oo naga howl degraysan Maxamed last time wax ka sheegay waxaynu qaban doonaa shirar badan waxaynu qaban doonaa waxyaabaha quseeya amba waxyaabaha naga maqan haddii aan nahanay Tanzania waxaa kamid ah waxyaabaha naga maqan in dhalinyaradii ay meel ay ku ciyaaraan helaan in macnaha waalidiinta ay helaan meel ay wax ku bartaan mar waxaa dhaco in qofkii uu baro qof English ah qofka Englishka wuxuu bari karaa erey English ah qofka ma bari karo erey Soomaali ah inuu ugu sheego si Soomaali ah Maxamed arrintaas ka shaqay doono oo sadgaray doono ta kale oo ayadana aan u baahannahay inaan qabsano xagga Tanzania maadaama aan deganahay oo aan ka faa'iideyno waxay tahay
in markii la yiraahdo la soo baxo in la soo wada baxo loo soo baxo danaha guud loo soo bixin dana gaar ah taasna waa waxyaabaha ugu waaweyn ee aan tiigsanayno mustaqbalka waxaan ku celin doonaa mikrofoonka waa I know that you guys, you want to help your country, Somalia, but you're not really doing that much. Sometimes you give money, but that's not doing a lot. You need to just try a little bit more harder, and then you can make it a better place. Well, why do you love so much Somalia? Because I've really never been there before, and I want to see where my parents grew up. Well, how old are you? I am 11 years old. Well, how do you see celebration of 1st July? I think it's a good thing. Like, we need our independence, right? You gotta celebrate. Yeah. Why? Why are you celebrating? You're not Somalian. Well, my parents are. And you know, that's where my family's from. Well, waxa uu jiraa 11 years, waxa uu jecel yahay Soomaalida, waxa uu jecel yahay bashbash iyo barwaaqo. What do you hope for Somalia? I hope that it will be a better place and all the people that move to America can go back. Okay. At least if now the president of Somalia is listening to you, what would you say to the president of Somalia looking at the camera? We need more change. That's right. Somalia can't stay the same way. It needs to be a better place, and you need to start helping. Thank you. Hassan Sheikh Mahmoud, فرين علوس أو دري محمود أو 11 years old. هذا ما تنتهي. Thank you. Thanks for coming. واقعي كرينا whatever الرول كرينا this way waxaan diibaynaa kooxda waxay fala soo yar kamaan qaadeen 12 o'clock maxaa dhacay weydiisaan wax walbaba sida horta ma dhacaan waxaan rabnay inaan madaxweynaha Soomaaliya soo xirno madaxweynaha wuxuu aad maaragtaa busy ugu ahaa xaflado kale oo shalay ay ku qabeen madaxtooyada Soomaaliya marka raalli ka ahaada laakiin waa isku daynay barnaamijkan hadda inta badan waa soo koobi doonaa sandheera soo koobi doona idinka iyo waxaa isaga tiin baxaynaa kooxda fanka والله عاو حالكني كاني إنا كقاد جلو حفلة برنامج الصومالية كود شلاي وحنا هذا نوتر عبد الرحمن مدحوينها الصومالية سبرايس هان بان كسر حاجة دونا لكن أنا صارت الكوميديا نقول إيشان سو أنا أقول نوع عاو إنه مدحوينها سبرايس الصومالية نوجي هاي عاو إنا هالكن حفلة كلها هذا أقول نوع والله أفضل ما تذكر مدحوينها الصومالية وحاوس تقول خدك تليفونك لكن نسيب حما ولي ونسوقنا مدحوينها الصومالية دي طبعا dad aad u yar uma shaqeynaya qaranka Soomaaliyeed meel walba joogaan ayuu u shaqeynaya waxaana ugu dambeyntii aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliya gobolkiisa Tennessee iyo caasimadda Nashville waxaan idin socodsiinayay anigoo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Nuur Sandheere tan inta dib u kulmi doono barnaamijkan la mid waxaan iskaga tegayaa daawadayaal Soomaaliya ha noolaato على قرب
Somalia.